حسن شيخ دليو دباد دعقبه إنو يحي حسن شيخ دليو دباد دعقبه إنو يحي اسكور رعدد وينو درجة كرسيقا إيو اسكور رعدد وينو درجة كرسيقا إيو دادهيه إلى روح الكؤدا أنا دادهيه إلى روح الكؤدا حسن شيخ دليو دباد دعقبه إنو يحي حسن شيخ دليو دباد دعقبه إنو يحي أنا مركب كفر حسن هاي مدار مدحوينه وطلع جحدي kartidaada dadaalkaaga daacadnimadaada iyo meesha dalka u hagayso waa kugu hambalyeynaa kuwad baan ku leenahay waa garab taaganahay dadka halka jooga madaxweyne saddex qaybood weeye qaybtii dalka Soomaaliya ku kortay qaybtii qurbaha iyo soo qaxaya dhalatay qayb halkaan ku dhalato qayb generation saddexaad oo aan Soomaaliya u haysto beel bahal galeena oo la tagi karin oo yaani aan dawladnimo ka suuran galin marka maanta waxa sharaf iyo karaamo noo ah حسن الشيخ محمد مدن حسن الشيخ محمد إنه قب شوقي هاي إنه أركان ضد أو مهين إنه أركان إنه أدور بحسه إنه ضد كهالكاس كل شيء وان صوماليا هاي لكن كسر شيء أصلاً صوماليا سيد صوماليا كنت جراهين وكنت جراهين إنه أدو سورة قاطو ديجا بيسود الماء هالكا كل شيء وحبضان بيسوعيان هالكا وحفري شنت صوماليا بفريضة reer hebel iyo reer faarax iyo reer jinimo fadhiyaan shanta Soomaaliyeed madaxii ugu sareeyay baa madaxweyne waxaan si gaar ah waayeen ugu mahadcelinayaa waftiga kale ka socda reer baalki reer Norway wasiiradeeda xildhibaanadeeda iyo xildhibaanada kale oo qaranka baalki isteediyada ayagana gaar baan u mahadcelinayaa dawladda Norway madaxweyne annaga waxaan ugu leedahay xaq anu waxaan soo galaan oo yar intaan qaarna ku dhashay qaarna ku yimid حقا ينقول هاي هي دلالك الصومالية شو تجا يجلسوا هي سيد دلالك الصومالية وعجيز سكوت هاي بحب وسارته وأنا أقول ما هذعلنا إلا أذكر واحد معنا بوس يسار هدي لا يراها مركا أنا هاي الصومالي النرويجي واحد يربى دلك الصومالية نوعار دلك وأنا كحسن كرنا أفرتني الله سنة قربان شوكا ده الوقت هذا وكاينها هم حوينه marka dadka aniga yar ama ka sii yar waxaan leeyahay nasiib baad leedihiin madaxweyne xasan sheekh waa soo tuuta qaba waa soo dhaawaca waa soo dhibaatooyin badan ku jira dalkii Soomaaliya kala daasan hogaanka u qabtay waxaan leeyahay ballanta qaadaysan aysan noqon wax iska faalsaa garab istaaga dalkiina waa barwaaqan wax dheer baan ka yimid waxaan soo joogay 4 bilood baan soo joogay markay ugu banday noloshayda 42 sano weeye inta kale 3 bari 4 bari toban bari ma inta kala tagay markay ugu banday weeye markii la gaaro 12 kaamiin xamar waan ku dhaxlugeynay marka habaqinina dalkii nabad ku kaliya midii ilaahay halkuu leeyahay leenahay dalaala dalka iyo dadka u istaaga maalgashada dalkiina madaxweynaha waynu amaanay hawl buu qabtay waxa jirta murtida Soomaalida inkastoo nin geesi rag u geed adeeg yahay haddaan garabka lala qaban gurigoodii maayo al-shabaab خواريستا ولا دغالمay خواريستا ولا دغالمay waxaan doonayaa in warkaygaasi meel fog gaaro laakiin intii shacabka Soomaaliyeed baa maqan shacabka Soomaalida ama gudaha joogeen ama dibadda ha joogeen inteeni baa maqan ma ka qayb qaadanaa sagana aan ugu ducayno in Ilaahay labada ugu muhiimsan inuu naga saaro 4.5 ka خواريستا inuu naga saaro aan ugu ducayno isagana أنا لا أحب برينو إنه لا يكون يا لبضاس آمين ده هذه ما سنتين مدعوينه سودو سدية سودو الدولة ديدو مسيح أنا قاعد كرتو دستورك وهجيس بالشو أي كو هجيس بعد دستور لو يقنا دولة أن دستور لهينا دولة منغط دستور أن لما يسترين أو غبية أنا معها mid dalka Soomaaliya anfacaya oo dawladda joogtana anfacaysa
annaga qurba joogta ee qaxootiga waddanku ana meel fiican oo ku noqono oo sharci iyo kala dambeyn ka jirto ayaan u baahannahay hawsha wadda ee dastuur ku saabsan madaxweyne waan kugu garab taaganahay annaga qurba joogta waan kugu bogaadinaynaa